Warar na soo gaaraya ayaa waxay sheegayaan in guriga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda Miranaaye ee degmada Kaaraan. Senator Muuse Suudi Yalaxow ayaa waxaa lagu soo waramayaa in halkaasi uu ka socdo diyaargarow ku aadan sidii dagaalkii ugu dambeeyay ee loogu qaado madaxweyne Farmaajo. Dagaalkan ayaa la sheegay in markaasi abaabulkiisa iska leeyihiin Senator Muuse Suudi Yalaxow iyo weliba Cabdi Qaydiid oo markan la safan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Labadan mas'uul oo ah kuwa ugu magaca weyn Soomaaliya gaar ahaan dhanka dagaalka marka la eego ayaa isku raacay in dagaal mooye wax kale aan lagu saarin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Ciidankii ugu badnaa oo ka yimid Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe ayaa ku sugan gurigaasi iyadoo lagu dejinayo istiraatiijiyada ciidan ee la doonayo in lagu weeraro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Dhinaca kalena amniga guud ee madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa kor loo qaaday iyadoo ciidamo aad u fara badan lasoo dhigay baraha control ee laga ilaaliyo madaxtooyada dalka. Dagaalkan ay abaabulayaan labadan mas'uul Senator Muuse Suudi Yalaxow iyo weliba Cabdi Qaydiid ayaa la sheegay inuu qayb ka yahay taageerada la siinayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo iminka dagaal gacan ka hadal ku dhawaaday uu kala dhaxeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Dhinaca kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya isagana wada dadaaladii ugu aadanaa ee uu markaasi madaxtooyada Villa Soomaaliya kaga soo saari lahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo uu sheegay inuu shaqada ka joojiyay. Ammaanka guud ee magaalada Muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyay iyadoo dhaqdhaqaaqyo ciidan laga dareemayo, waxaana dhinaca kale ciidamada badbaado qaran ay wadaan dhaqdhaqaaq ciidan oo ku aadan sidii ay kaga hortagi lahaayeen in ciidamada magaalada Muqdisho uu soo geliyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. Ciidankii ugu badnaa oo ka yimid Shabeellaha Hoose iyo weliba gobolka Gedo ayaa soo gaaray kuwaas oo taageersan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. Shacabka ayaa iyagu waxay kuwa dareen qaba oo ku aadan in markasta magaalada uu ka dhici karo dagaal u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble. Dhinaca kalena dibadbaxyo ballaaran ayaa lagu wadaa inay ka dhacaan magaalada Muqdisho kuwaas oo looga soo horjeedo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya gaar ahaan afgambigii uu sameeyay. Dibadbaxan ayaa waxaa horkacaya midowga musharaxiinta qaarkood oo ugu horeeyo Axmed Macali Fiqi oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, sidoo kalena soo noqday wasiirka amniga maamulka Galmudug balse isaga tagay markii ay isfahmi waayeen madaxweynaha maamulkaasi Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. Abaabulka iyo weliba qabanqaabada dibadbaxaas ayaa ka socda magaalada Muqdisho. Musharaxa Fiqi oo ka mid ah siyaasiyiinta ka qayb gashay kulankaas ayaa sheegay inuu taageersan yahay dibadbaxaasi oo uu sheegay inay ka muujinayaan sida ay uga soo horjeedaan tallaabooyinka guracan ee madaxweynihii hore. Dibadbaxan ayaa dunida loogu cadeynayaa sida uu shacabka uga soo horjeeday in Farmaajo uu sii joogo Villa Soomaaliya isla markaana aysan u rabin in mar kale uu carqaladeeyo doorashooyinka hoggaankeeda haya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Tan iyo markii lagu dhawaaqay dibadbaxan waxaa abaabulka si weyn uga soo socda magaalada Muqdisho, waxaana lagu muujinayaa sida ay shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiintooda uga soo horjeedaan Farmaajo ayna u rabaan inuu banneeyo Villa Soomaaliya. Dhaqdhaqaaq cusub ayaa qayb ka ah dhaqdhaqaaqyo dhowr oo looga soo horjeedo Farmaajo iyadoo dhowaan ra'iisul wasaare Roble amray inay ciidamada ka amar qaadan karin cid aan isaga ahayn si looga baaqsado xaalad abuur cusub oo dalku horseedi kara. Farmaajo ayaa 27 bishan isku dayay inuu awood ciidan ku qabsado xafiiska ra'iisul wasaaraha kadib markii uu soo kala dhexgalay khilaaf xooggan oo ku aadan arrimaha doorashooyinka iyo hoggaaminteeda kaas oo markii dambe guuldareystay. Taliska booliiska gobolka Banaadir oo hogaaminaya Farxan Qaroolana waxay diyaarinayaan sida ay kaga hortagi lahaayeen dibadbaxaasi lagu dhawaaqay. Geeska kalena ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa xalay la shiray madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland Axmed Madoobe iyo Siciid Dani sida lagu shaaciyay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha. Roble ayaa labada madaxweyne kala hadlay qabanqaabada shirka golaha wadatashiga qaran oo dhowaan Muqdisho ka furmaya kaas oo ajandihiisu yahay dardargelinta doorashooyinka dalka.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa xalay Muqdisho kula kulmay madaxweynayaasha dowlad goboleedka Jubbaland Siciid Cabdilaahi Dani iyo Axmed Madoobe iyagoo ka wada hadlay qabanqaabada shirka golaha wada tashiga qaran ee dardargelinta doorashooyinka dalka oo ka furmaya Muqdisho ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay. Kulanka ayaa ku soo aadaya iyadoo afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalin uu xalay shaaciyeen madaxweynaha Koonfur Galbeed Lafta Gareen oo Muqdisho ku soo wajahan yahay isagoo ka qaybgali doona shirka xilli uu hore u diiday ka qaybgalkiisa isagoo taageero xoog leh u muujiyay madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. Qoraalka xafiiska afhayeenka ka soo baxay intaasi waxa uu ku darayaa waxaa socda diyaar garow furitaanka shirka golaha wada tashiga qaran ee uu iclaamiyay ra-iisul wasaaraha iyadoo amniga guud ee magaalada Muqdisho si weyn loo adkeeyay. Sidaan ogaanay Lafta Gareen ayaa bedelay mowqifkiisa diidmada shirkaasi kadib cadaadis xooggan oo kala kulmay dowladda Mareykanka. Kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Afrika Maria Catherine Pe oo maalmahanba waday cadaadis ay taageero ugu raadinaysa shirka golaha wada tashiga qaran ayaa la hadashay hogaamiyaha Koonfur Galbeed Lafta Gareen. Lafta Gareen ayaa hadda la filayaa inuu soo gaaro magaalada Muqdisho si uu uga qayb galo shirkaasi. Waxaa sidoo kale ogaanay inuu ka shalaayay warqadii uu ku diiday shirka Rooble kuna taageerayay shirka Farmaajo uu ku baaqay maadaama ka qaybgalkiisa iminka ay cadeen u noqonayso inuusan ahayn go'aankiisa mid markaasi saxan.